Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkani waa cusbitaalka degmada Caluula. Waa cusbitaal cusub oo aad iyo aad u wanaagsan oo aad u jeetaan in quruxdiisa ka muuqata iyo sida uu yahay, laakiin ayaan daro cusbitaalkan lagama faa'iideysan. Wax lagu qabsadayna ma jirto. Waad u jeedaan in waa xiran yahay. Waxaan ugu dambeysay xilli cusbitaalkani uu shaqo galo xilligii 94 ilaa 95 oo markaa ay joogtay hay'ad la oran jiray Med-Aid oo si fiican uga howlgali jirtay. Cusbitaalkan kaleeto aad aragtaan in waa cusbitaalkii hore oo qadiimiga ahaa oo ay dhistay dowladda Talyaaniga. Halkaas waxaa ka sii muuqda matooradii cusbitaalka meesha ay ku xiraysnaayeen. Halkan waxa weeye dhirtaas aad u jeedaan in guryaha ka dambeeya waa iskoolkii degmada Caluula. Waad u jeedaan in cusbitaalkan quruxdiisa sida uu yahay iyo sida qaabkiisu u dhisan yahay kaliya wuxuu u baahan yahay caawinaad uu helo oo ah in cusbitaalkii dib loo furo, la howlgeliyo, laga shaqeeyo, mataqaanaa dadkuna ay wax ka qabtaan, in dadkuna ay ku faa'iideystaan. Waad u jeedaan hadda waxaan rabnaa inaan galno cusbitaalka gudihiisa, inaan galno oo aan idin tusno bal muuqaal ahaan sida gudihiisa uu yahay. Halkan ma ka gelinaa قيب هذا شغل qaybtani waxa weeye waa gudihii cusbitaalka. waxa weeye waa qaybta ay ku shaqeeyaan in qolada MCH ka ay ku shaqeeyaan oo ay u yaaleen dawooyinku. waxa u yaalo dawooyinkan ayaa u yaalo oo ay mataqaanaa ku shaqeeyaan. gudihiisu sida tan uu ogyahay saas uu goglan yahay, sariirihiisu waa caynkaas, sariir caynkaas ayaa yaalo. macnaha waad yaabaysaa cusbitaalkani qaabka uu dhisan yahay iyo qaabka uu qalabeysan yahay oo haddana aan laga faa'iideysan oo cid ka faa'iideysatay aanay jirin. waa kana sariirihiisii jiifka meelihii loogu talagalay in bukaanka la jiifiyo. waa u jeedaan in sida uu qurux badan yahay meelaha loogu talagalay in bukaanka la jiifiyo. wuxuu u muuqaal eg yahay cusbitaalada wadamada horumaray ayuu u muuqaal eg yahay. uma muuqaal eg ka cusbitaal ku yaalo Afrika ama Soomaaliya. waa wax cajiib ah, waa wax aad iyo aad loogu farxo in uu ku yaalo deegaamadan cusbitaal caynkan oo kaleeta inuu ku yaalo. laakiin waxa ayaan darra oo naxdin ah oo qof walbiiba mataqaanaa uu ka naxaya markii la yiraahdo cusbitaalka caynkana cid ka faa'iideysatay ma jirto. oo saas ayuu isaga xiran yahay. halkani waxa weeye waa stoorkii dawada weeye oo dawada la dhigayo weeye. cusbitaalka dawadiisa kaydka ay oolayd weeye. waa u jeedaan hadda dawooyin ayaa yaalo, qalab kaleeto ayaa yaalo. dhinaca kan waxa weeye waa dawooyinkii faaruq ahaa iyo meelihii mataqaanaa lagu xafidayo oo lagu nabadgeliyay. قلتي dhinacaas waa xiran yahay, qolkii waxa uu dhinacay qalliinka iyo halkan waxa weeye qolkani waa xiran yahay oo waxa weeye hadda ma shaqeeyo, laakiin sida ay noo sheegeen qolada maamusho hadda cusbitaalka gacanta ku haysay waxa weeye waa qaybta qalliinka loogu talagalay oo wax lagu qalo. waxaan kaleeto aan rabnaa in aanu halkani waxa weeye waa qolka loogu talagalay in lagu qaboojiyo dawooyinka oo collagen-ka ah. talaagadihiisa waa kuwaas oo arkaysaan in loogu talagalay in dawooyinka lagu hayo oo lagu qaboojiyo. sida mataqaanaa waad u jeedaan hadda halkan waxa weeye waa talaagadihii oo mataqaanaa aan shaqeynayn oo laakiin waxba aan qabin oo haddii maanta laga shaqaysiiyo shaqeynaya. waa u jeedaan in haddii aan korkiisa idin tuso halkani waxa waaye waa lightkiisii, waa leerarkiisii iyo qalabkiisii oo dhan waa u dhan yahay. cusbitaalkan wax dhibaato iyo wax dhaawac kama muuqdaan. marka daawooyinka mar isku dayeen mar dhexdaas waxaa yimid mataqaanaa qurba joog ayaa yimid oo isku dayay inay cusbitaalka isdaaraaneen oo dawooyin keenay. waana la hayaa mataqaanaa qaabkoodii iyo markaas mataqaanaa maxaa qaabkii dawada treatment loo bixinayo
halkan waxa weeye waa buuggii dadkii sida loogu adeegayay oo dawada loo bixinayay magacyadoodii qaabkii loo qorayay qaabkii loo diiwaan gelinayay qaabkii oo dhan sidii loogu shaqeynayay waa ujeedaan in waxa weeye nidaamkan weeye ninkani waxa weeye waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq aadan cali ayax ayaa la yidhaahdaa waa dhalinyarada ka shaqeysa oo ka howlgasha cusbitaalka ka howlgasha qaybta nersiska marka waxaan bal weydiin doonaa cabdirasaaq bal inuu nooga sheekeeyo guud ahaan gaar ahaan cusbitaalka xaaladihiisa iyo siyaabaha uu u shaqeeyo cabdirasaaq bal adigoo soo koobaya ka waran cusbitaalkan Caluule ee aad hadda joogto adigu furihiisa aad hayso sida uu u shaqeeyo iyo xaaladihiisa cusbitaalkan wuxuu u shaqeeyaa sida hadda wuxuu u shaqeeyaa cusbitaalkan laba qaybood baa hadda lagu shaqeynaa oo ah qayb OPD iyo qayb maxaa la yidhaahdaa MCA qaybta OPD-ga oo over 5 year waxaan ugu shaqeynaa halkan roomkan waxaan ugu shaqeynaa qaybta MCA-kana waa qolka aan soo aragnay oo xagga ah waan ugu shaqeynaa haddana macnaha servicekiisu aad u badnaa wuxuu u baahan yahay marka isbitaalka aad aragtay oo macnaha qaabkaas leh oo isbitaalada u horumaray u eg in macnaha si la taakulayo qolooyinka qurba joogtaan waxaan ka codsanaynaa in ay taakuleeyaan wixii ay nala qaban karaan oo aad iyo aad nabad soo koobayna waxa weeye cusbitaalka waan u jeednaa dadkuna way arki doonaan sida ay quruxdiisa iyo bilicda ka muuqata iyo sida uu u xafidan yahay oo uga nabad galay dhibaatooyinkii baahsanaa ee ka jiray mataqaanaa burburkii laga dhaxlay cusbitaalku ma jira doctor fariista oo mataqaanaa ka howlgala oo dadku ay soo booqan karaan inuu bukaan socotadu ay u iman karaan ma jiraan waa jiraa waxaa ka howlgala doctor Aadan Cali waxba fariista okay hadda hawlo shaqo ayuu ku maqan yahay sidaan warkan aan ku hayno wuxuuna joogaa mataqaanaa deegaamada meel kamid ah ayuu joogaa oo hawlo shaqo ugu maqan yahay ilaa iyo iminka wax mataqaanaa mucaawino ah oo idinka soo gaaray markii laga saaro timid kala horeeto qurba joogta ay soo direen wax mucaawino oo dibadda idinka soo gaaray ama qurba joog ha ahaato ama hay'adaha caalamiga ha ahaatee ma jiraan ma jiraan waxaan dirac mucaawinaha oo laga soo gaaray UNICEF waxaan ahayn oo maaragtay MCH-kaas ku xiran maahay qaybta isbitaalka ma okay kolley waxa weeye waa la daawan doonaa filmkan dadkuna way arki doonaan cid kasta oo danaynaysa inay mataqaanaa wax la qabato ama wax ka qabato cusbitaalkan filimkan wuu gaari doonaa aad iyo aad ayaa u mahadsantahay cabdirasaaq